suumamka xidha Somaliland dariska dhamaantiinba waxa la galay bishii baroorta iyo bariyaha dhulka la dhici jiray ee darbiyadu ay khaatiyaanka istaagi jireen ee darjirka dahsoon halkaasi laga soo fadwoon jiray lagana soo barooran jiray xalay toole markii safiirka Somaliland u fadhiyi doona dalkaasi Israa'iil la magacaabay ay baroortii ay bilaamatay muuqaalkan like sar sira sheergare dadyo fara badan ayaa waxa ay sugayeen in daljirka dahsoon laga soo baroorto laakiinse baroortii waa la bedelo baa laga dhigay oo ban qiyaame ayaa laga soo miisaya baroorta oo laga bilaabay sida halkani ka muuqata kooxaha deegaanka waqooyi galbeed uu gacanta u galay waa kuwa Soomaalinimada neceb sidoo kale waa kuwa neceb dalkooda iyo dadkooda Soomaaliyeed waxayna dabad ku hayaan aragtiyo khatar ku ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan maraynayaa Soomaalida wuxuu ku faafay ama aad loo barto markuu ku kacay talaabooyinkii ka hor imanayay qiyamka islaamka iyo muqaddasaadka diinta islaamka uu u gacan haadiyay duul aanu xakamayn karin runtiina uu qoorta u geliyay dadka reer Hargeysa iyo dadka Soomaaliyeedba wax aanay noloshooda ka soo qaban sidoo kale waxaan dowladda federaalka ku dhiirigelinay in la badbaadiyo dadka reer Hargeysa oo ah dad u afduuban muddo 30 sano ah aragti aanay aaminsanin amaani doonin adduunye abaa wasoo adduunye macaankii ka dhamaado yarkaasi ku jira jeelka dusha ka furan ee shalay toole Somaliland kamid aha maantana Somaliland kamid ah beenta loo sheegay lagu yiri Somaliland la'aanta ma jirayso lama aqoonsanayo oo waagi ku biriyay baan u arkaa shalay toole markii Somaliland kamid ahayd Soomaalidiid soo maadahayn maanta Soomaalinimada ku biiray 2024 maanta ayad Soomaali aad noqotay oo 2024 ayaa aad sida aad sheegtaan aad ka xorowdeen reesha Saxaaq ilaa ay afkiina ka yiraahdeen waxa xoriyada qaatay waa adiga haddana isla maanta waxa sida kondhomka loo isticmaalayo isagoo jeel dhakada ka furan ku dhex jira waa adiga waxa ku leeyahay adeer gacaliye jeelkaaga dhakada ka furan iskaga jir oo iska chaygagaas waayaa dhanka kale Cabduuli Cali gaas oo hore uga noqday madaxweyne maamul goboleedkaasi Puntland ayaa sidoo kale maanta ay naftu ay runta ay u sheegtay oo 100% waxa uu afkiisa uga dhowraya in Somaliland aanay marnaba soo laaban doonin markiisa waxa ka muuqda in uu 100% uu ka rajo dhigay wax la yiraahdo Jamhuuriyadda Somaliland inay dib ula midowdo isla dawladda shaarka argagixisada xiran ee aan xamar ka wada talin ee horjoogaha uu yahay Xasan Xabaalo Fadhima ila dhigayso muuqaalka isagana wax yar dad badan baa ku doodaan haddaan la keenin mesela Somaliland oo kale dastuurku ma dhamaystirmayo waxa fasiriya waa hadal khaldan sababtoo waxa weeye ma naqaan Somaliland goorta imaanayso soo biirayso halka ay ugu qabo waayahay Ali Nijaas Ali Wiski oo isaga maanta ay duruufuhu isagana ay sidaa ay u babirayaan marnaba miyuu islaa Xasan Xabaalo Fadhood u fadwooto oo agoomaha iyo hooyooyinka iyo danyarta masaakiinta dhulalka markuu qaxinayo uu ka xabsanayay waxa uu lahaa sidani oo waa waajib ayaa u taagnaa isla isaga ayaa maantana ay haysataa oo 100% sidii ay masaakiintaasi ay u ogeysay maantana soo ka barooranaya isla Facebook dhulka dawladda la yiraahdo madaxweynaha maamul dhulkaas cid alaal cid uu yiraahdo la siiyo ama la dejiyo ama laga iibiyo ya ama free lagu dejiyo xaq u leeyahay haday gadayso xaq ay u leedahay haday dagayso xaq ay u leedahay haday hibaynayso xaq ay u leedahay dad ay lacag laan ku siinayso haday lacag dadka u gadanayso 30 sano dad iyaga lamid ah dhul dawladda ganayna noolay mugta dadkaas la mid yihiin dadka 30 sano haday dhul dawladda ganaayeen maanta dawladda tiraan dhulkan ka kaca horta inay ka kacana waajib ku ah sidoo wax kale looma haysto loo raacamayo laakiin inay ka kacana waajib ku ah Xasan Xabaalo Fadhima Master Xabsade hambalyo baa ku leeyahay tani waan kuugu hambalyeynaya kii ka fadwoonay iyo kii ku fadwoonay haddaad labadoodiba aad ku xaawinayso Xasan Xabaalo Fadhima kaliya ta waxa uu hadhay inuu qabrigii aabihii uu soo faagto oo amba uu soo fadhno kolba sidaad u taqaano markaasuu Ali Wiski Ali Nijaasiyana uu ka sugayaa arxan iyo in akoonada loo sii buuxiyo si uu fadwooyinka uu sii tiro badiyo uu sii laabo fadwadii Israa'iilna walaal way ku sugaysaa Ali Nijaasawe sideed yeeli doontaa ama baroorta adiga gurigaaga baad si barooran doontaa mise xagganaad fadwada u soo leexin doontaa si akoonada dib lagugu soo buuxiyo mise akoonada laftigoodii waa laga
xabsaday oo sheekadu guri kaliyaatay iyo dhul kaliyaatay iyo goof ma taagna cali wiski cali nijaasiya waxaa ku leeyahay cuquba halkii lagu galay ayaa cawo ku wiridaa maanta bogcadaada ayay ay cuqubadii aad ka gashay masaakiintaasi aad ugu fudwoonaysay sida aad u hadlaysay iska dhigaysay libaax ina sanka taabtaa lahayd waa waajib boqolkiiba boqol maanta adiga gundahaaga ay ka dilaacday shaq baan ku leenahay waa cuqubadii oo aan weliba kaa soo raagino dhowr bilood gudaheed kaaga soo ifbaxday waxaa la leeyahay xasan xabaalo fadhe hambaliyo kugu maalnay master xaabsade xaabi waxaad aragtaba waayahay ugu dambeyn safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ku tagayay dalkaasi israa'iil iyo maraykanka uu isku marayay waxaa hore u baajiyey dagaalada bariga dhexe ka qarxay ee 40 cisho ee xidhiirka ee socday boqolkiiba boqolkaasi lagu qaawiyey si diblomaasiyadeed ahaan iyo si awood ahaaneedba israa'iil iyo maraykanka oo isgarabsanayo oo keliyata ay u hadhay inay nuclearun ay isticmaalaan oo awood kasta ay halkaasi ku dayeen sidii ay isla dawladda kacaanka ee dalkaasi Iiraan ka talisa ayay gabiyaanteedba u burburin lahaayeen boqolkiiba boqol oo sidoo kalena ay ka filanayeen isla gudaha Iiraan inay kacdoono ay ka dhacaan taasi oo ay la waayeen oo bedelay kacdoono lagu taageerayo isla ilaalada kacaanka dalkaasi Iiraan ka taliya boqolkiiba boqol waayahay safarkaasi hore ayaa u baajay balse maanta waxaa boqolkiiba boqol soo cusboonaatay inuu safar madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ku baxayo uu ku tegi doono dalkaasi israa'iil ilaa maayo maraykanka 18 May ka hor laakiinse xaqiiqa warkaasi ku saabsan waxaan ka warsigi doonaa ilaha xukuumadda uu galwaday ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro balse waa sida ay saadaashu ay tahay boqolkiiba 18 May ka hor inuu safar ku tagi doono madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dalkaasi israa'iil iyo maraykanka si kasta yaato waan arki doonaa horta uu safarkaasi uu noqdo sidoo kale dhaga kale waxaa boqolkiiba 99 la saadinayaa dalalka kale ah Hindiya Greega Ethiopia iyo sidoo kale Imaaraadka inay mid kamid ah noqon doono dalkii labaad ee liibaanay ee soo labeeya aqoonsiga ay siisay Israa'iil isla jamhuuriyadda Somaliland iyadoo malayna safarta dal inuu noqon doono ka labaad ee liibaana ee aqoonsi siiyay jamhuuriyadda Somaliland adiga fikirkaaga comment nagu la wadaag sanatarada xisbiga dimuqraadiga